beesha caalamka ayaa maanta war ay soo saartay ku sheegtay inay ka walaacsan yihiin go-aankii golaha guurtida ee Somaliland 24 bishan muddada 2 sano lagu kordhiyay waqtiga golaha wakiilada. war-saxaafadeedkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in heshiiskii xisbiyada Somaliland ay gaareen bishii July ee sanadkan uu ahaa mid ahmiyad leh oo lagu go'aamiyay in la qabto doorashooyinka xubnaha baarlamaanka iyo kuwa golaha deegaanka, iyo in lagu heshiiyey in doorashooyinkaasi lagu qabto sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalka ah siyaasad ahaan iyo farsamo ahaanba. waxaan ka walaacsannahay in dhacdooyinkan ay sii wiiqayaan heshiisyadaas, taasi oo dhaawacaysa sumcadda Somaliland. sidoo kale waxaa si aad uga walaacsannahay dhacdooyinka xargu uu ka mid yahay oo muuqda, kuwa sharci darrada ah oo xorriyatul qowlka uu ka mid yahay, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan ka soo baxay beesha caalamka. qoraalkan ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu yiri waxaan baaq u jeedinaynaa dowladda iyo jilayaasha siyaasadda inay dib u eegaan heshiiska isla markaana laga fiirsado muddo kordhintaas.